بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي هبين وناكسن meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiib waxaan caawa falanqeyn doonaa labada difaac ee nadiga Liverpool Arnold iyo Van Dijk oo xal soo bandhigay ciyaar aad u liidata kadib markii ay gigida Old Trafford ka dhacday ciyaar u dhaxaysay Liverpool iyo Manchester United labadan difaac oo ahaa labada difaac oo ugu adag horyaalka Premier League ana laba difaac oo khabiiryaal ah booskoodana aad iyo aad ugu fiicnaa ayaa xalay waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xun taas ayaan falanqeyn doonaa caawa saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto channelkeenan saaxiib subscribe noo saar waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga xalay waxay shaashadaha caalamka ay soo qabteen laacibka khadka dhexe ee khabiirka ah James Milner oo ku qeynaya laacibka lagu magacaabo Van Dijk kadib markii gool asigoo ujeeda uu ka dhashay laacibka lagu magacaabo Sancho James Milner oo aan khabiir ah khadka dhaxan wax badan ka soo shaqeynayay una qaabilsan nadiga Liverpool dhiirigelinta iyo inuu isku dibrido maadaama uu yahay in aan gooldarada u dul qaadan karin ayaa xalay wuxuu si leefa oo ciyaarta dhexdeeda ugu qeyliyay laacibka lagu magacaabo Van Dijk waxa uu sameeyay asagoo ujeeda booniga oo indhuhu shan taagan asagoo awoodi karo inuu ku soo ordo laacibka Sancho iska istaagay maadaama nin laacibka lagu magacaabo Van Dijk lagu yaqaanay markii booniga uu ku soo jiidanay ciyaaryahanka inuu godaal u carro iyo difaacada kale oo saaxiibadiisa u dhaho gala oo asaguna gadaal u baxo lagu yaqaanay xalay tii ayaa lagu ciqaabay kadib markii laacibka lagu magacaabo Sancho uu booniga ka dhex qaatay xerada ganaaxa ee nadiga Liverpool kadibna laacibka lagu magacaabo James Milner oo ka soo orday meel fog uu ku soo tuuray laacibka lagu magacaabo Sancho ayaa u gooyay laacibka lagu magacaabo Milner kadibna booniga ku togtay goosha nadiga Liverpool waxa markaas aad u xanaaqay laacibka lagu magacaabo James Milner oo khadka dhexe uga ciyaaray nadiga Liverpool waxaanu aad iyo aad u canaantay laacibka lagu magacaabo Van Dijk kadib markuu ku yiri wariyaha maxaad u istaagaysaa oo ninka u daawanaysaa ninka ma ku soo baxdid James Milner ayaa ku yiri sidaas laacibka lagu magacaabo Van Dijk kadib markuu Van Dijk uu awoodi way inuu ku soo leexdo amboonigaas uu ka safgarayo laacibka Sancho waxaana uu sheegay inuu aad iyo aad u canaantay laacibka Van Dijk kadib Van Dijk oo ogaaday laacibkiisa inuu aad u careysan yahay ayaa hadal qabow ku yiri laacibka lagu magacaabo James Milner ee khadka dhexe ka ciyaarana adiga Liverpool waxaan ognahay in Liverpool xalay boonigii ay soo bandhigtay aad u liidatay maadaama laacibka lagu magacaabo Van Dijk laga bartay nin booni controlan deganaan ay ku jiro inuu dheelo xal laakiin waxa uu celin waayay oo daafici Liverpool oo adka shubka ahaa oo booniga soo dhisi jiray xalay waxay celin waayeen Rashford iyo ninka lagu magacaabo Sancho aad badan baan u imaanaysa dhammaan caalamka iyo ciyaaraha hore ee ku dheeli jiray horyaalada qaaradda ka dheeli jiray qaaradda Yurub waxaan aad u eedeeyaan laacibka lagu magacaabo Van Dijk kadib markuu asagu saameyn ku lahaa ama agsigiisa u lahaa goolkii koobaad ee ciyaarta Liverpool iyo Manchester United kadib markuu asagoo qalan saa u taagan sidii birtii laga dhashay gool waxayna sheegayeen in xalay fadeexad weyn oo soo wajaday daafaca Liverpool oo ahaa inay ahaayeen laacib dafacyo kala daadsan oo aan ayagu ku jiro khalkhal ku jiro booniga khaldayay aan sidii hore looga bartay aan ahayn taasoo ku qasabtay in la burburiyo daafaca Liverpool maadaama ciyaaryahan da'yar ah oo u dheeliyay nadiga Manchester United Rashford iyo laacibka lagu magacaabo Sancho ay aad iyo aad u firfircoonayeen xalay taas ayaa kaleeftay in aad loo eedeeyo laacibka lagu magacaabo Van Dijk oo laga baran in wiilasha yarka ama ciyaalka ama weeraryahanada aad u carbin jiray xoog iyo dheereen haday noqoto iyo madax laakiin xalay waxa moodaa in aad iyo aad macnaha loo burburiyay nadiga Liverpool waxaan kaloo saaxiib eegina laacibka lagu magacaabo Arnold oo midigta uga dheelay nadiga Liverpool difaaceeda xalay asagana waxa uu soo bandhigay ciyaar aad u liidata waxaana uu yahay laacibkan waxa uu kamid yahay laacibada ugu fiican booska ay joogan xalay waxa uu celin waayay laacibka lagu magacaabo Elengi celin waayay Elengi oo ku cusub nadiga Manchester United oo wiil da'yar ayuu celin waayay xalay laacibka lagu magacaabo Arnold waxa lagu yaqaan Arnold qorta weerar Arnold wuxuu ku fiicnaa waa nin weerar haday Liverpool awood leedahay ama weerar ay bilowdo ninka wuxuu yahay qayb ka ah tir dhaxad buu yahay weerarka Liverpool laakiin haday mar noqoto in naadiga ka soo horjeedo oo weerar soo qaado Arnold waxa uu yaqaan aan macnaha difaac shafiic aan lahayn
maadaama uu yahay laacib jir yar oo aan dheerayn laakiin boonigaas jafta iyo booniga isku dhufshada aad u yaqaana marka waxaa lagu yahay inuusan shay fiican lahayn haddii laacib dheereeya ama ka xoog badan ama skills leh uu garabka soo fuulo in macnaha la soo jibaaxayo laacibka lagu magacaabo Arnold laakiin xagga weerarku aad ugu fiican yahay oo inta badan dadku ay sheegaan saxaafadda ciyaaraha halay laacibkan da'da yar Elanga lagu magacaabo oo Manchester United dhawaan gal ku ah ayaa xalay burburiyay laacibka lagu magacaabo Arnold kadib markuu tomboni kubad ka badan ula soo xarooday laacibkan Elanga kadib markuu saad u soo jibaaxay ama uga soo dheereeyay laacibka Arnold xalay waxa uu soo bandhigay ciyaar aad u liidata maadaama qiimayntii la sameeyay ee laga sameeyay nadiga Liverpool uga jiray space ka hoose maadaama uu goor khalad ku galay laacibada weerarka uga dheeraa nadiga Manchester United kadib markuu aad iyo aad Elanga uu laba khaas ku galay maadaama aad lagu soo tagay laacibka lagu magacaabo Arnold ayaa xalay waxa ku jira khalkhal badan maadaama nadigiisa la weerarayay maadaama asagu uu yahay laacib weerar ah ama weerarka caabiya ama ka caawiyo weerarka nadiga Liverpool asaga laacibka dhinaca bari uga ciyaara Robertson ka caawiyo inay Liverpool macnaha weerar tagto laakiin waxa moodaa in Arnold xalay uu saameyntiisa asagana aad u yareed maadaama uu weerarayay nadigiina uu khalkhal badan ka jiray Mohamed Salah iyo dadka kalena iyaguna ay warar ay macnaha maskaxda ay ku hayeen maadaama booniga ay isku dhufsadaan laga soo qaadayay waxa kaloo saaxib jira laacibada Liverpool xalay waxaad moodaa in aysan soo cashayma moodaaba booniga isku dhufsan jiray Liverpool weerarka weer ceeska booni counter attack xalay lama arag dib badan ayaana soo wajay Liverpool oo waxaad moodaa sanadka Liverpool inay ka taalo oo ay kaalmaha ugu hooseeya ee horyaalka Premier League ay hadda ku jirtaa maadaama saddexdii kulan ee la soo dhaafay ay qaadatay laba barbara ah iyo mid gool dara ah Liverpool sanadihii la soo dhaafay waxay ahayd nadiga ugu adag horyaalka Premier League waxayna ahayd nadiga laga boqo maadaama ay haysteen weerar aad u kulul Mohamed Salah weerar kodan waa weerar dhameystiran Mohamed Salah Sadio Mane iyo laacib Roberto Firmino kadib laakiin inkastoo sanadka hore laacibka lagu magacaabo Firmino uu ka tagay markuu yimid Diaz iyo Jota oo xogaa boonigiisa soo dhac ku yimid waxaan oo kale saaxiib macnaha wararka badan ay sheegayaan oo